daawadayaal ku soo dhawaada sheeko taxana inoo noqon doonta ee filimka Madam Secretary oo ku saabsan Hillary Clinton waqtiga ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka. Sheekadu waxay ka bilaabanaysaa sidatan: waa macluumaad ka dhigtay jaamacadda Virginia Political Science ee dalka Mareykanka intaysan shaqadeeda aadin subax iyadoo la qoraanayso qoyskeeda oo ka kooban 2 gabdhood iyo wiil iyo saygeeda ayaa la soo hareeriyay gurigeeda. mise waa baabuur soddon ka badan oo ka yimid aqalka cad, mise waa booskeeda hore oo madax u ahaa marka ay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA la shaqeynaysay, laakiin hadda ah madaxweynaha Mareykanka. layaab ayay ku noqotay in ay dib u aragto muddo kadib booskeeda hore. haddana layaab kale ayay ku noqonaysaa in madaxweynaha Mareykanka uu gurigeeda ugu yimaado iyadoo aan wax lahayn. waxaase ka siyaabada arrinta uu ugu yimid. wuxuu ku yiri madaxweynuhu, waxaan rabaa inaad ila shaqeyso kuna soo biirto xukuumadayda. waxaan rabaa inaan kaa dhigo wasiiradda arrimaha dibadda. way naxaysaa marka hore, matag ayaana qabanaya. iyadoo shaqsigaysa ayay weydiisay, laakiin maxaad igu dooratay aniga? wuxuu leeyahay 12 sano ayaa ila shaqeynaysay. waxaan aqaanaa waxaad qaban karto, sidaad u qaban karto iyo sidaad u fikirto intaba. waxaan aqaanaa waxaad ku salayso miisaanka go'aankaaga. waxaan aqaanaa inaad caadifada aqoon eexnaadan aqoon. waxaan aqaanaa inaad leedahay maskax taxliilin karta arrimaha murugsan. uu ka tegay isagoo ka dardaarmaya oo dhahaya, waxaan rajeynayaa inaad kusoo biirto xisbigayga. waa halka ay ka bilaabanayso sheekada taxanaha ah ee filimka Madam Secretary ee ku saabsan Hillary Clinton waqtiga ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka iyo siday u maareeyeen dhacdooyinka qallafsan waagaas Yemen, Syria, Liibiya iyo qoyskeeda. maadaama ay tahay hooyo, aad ayay u qurux badan tahay markaad dhisayso koox kuna saleynayso doorashada cidda qayb ka noqonaysa kartidaada iyo awooddaada. qofka aad shaqada siinaysana inuusan u baahnayn shaqo iyo mushaar ee uu hadafkiisu yahay in guul taariikhi la wada sameeyo. haddaba waa marka aad fiirin kaaba qabiil ayaa i keenay, xildhibaan ayaa wataa, isku qabiil ayaa nahay. haddaba daawada intaas ayaan ku hakinaynaa qaybta koowaad ee warbixinta aawa. la soco qeybaha xiga hadduu Ilaahay idmo.